Audio Jungle. san la socono Soomaaliya waxay qaadatay nidaamka federalismka nidaamkan oo ah nidaam bahwadaaga oo macnaha dawlad dhexe iyo dawlad heer state iyo dawlad hooseba ay jirto waxa ka dhaxeeya in la fahmo qaabka federalismka u shaqeeyo nidaamka inta federalism ee noocyo system jira adduunka ka jira midka aan ka qaadanay muxuu yahay faa'iidada ilaa iyo hadda aan ka gaarnay fahamka federalismka guud in ay fahmaan loo baahan yahay dawladda waxaan ogsoonahay wasaaradaha hay'adaha dawladda Jubbaland shaqaalaheeda rayidka waxay ka mid yihiin kuwa ugu horeeya oo u baahan inay fahmaan runtiina ku dhaqmaan wasaarad kasta waxay bahwadaag la tahay wasaaraddeeda kaleeto oo heer federaale waxbaa ka dhaxeeya xuquuqaa jira khaasatan wasaaradaha oo dakhliga iyo dhaqaalaha soo saara wax badan ayaa jira oo naga dhaxeeya marka in la fahmo waa muhiim waxaa muhiim ah marka waxyaalaha ayaga maarata inay ku xusan yihiin dastuurka heer federaal iyo heer state labadaba ay ku xusan yihiin dal ka jirtayoo wasaarado gobolle ay leeyihiin ma jirin waxaa jiri jiray isku duwayaal gobollada iyo degmooyinka ka shaqeeyo oo dawladda dhexe ninba wasaaradda uu isku duwaha ka yahay iyo shaqaalaha ka shaqeeyo waxay toos u hoos tegahayeen wasaaradda ay ka tirsan yihiin waxba waa lagu gaari waayey waxaa laga yaabaa dadku in ay qabaan federaalkan waxaa la leeyahay wax noo yimid 96 iyo carta iyo waxaa inay ka bilowdeen Soomaaliya markay gobonnimada qaadatay dad Soomaali ah baa waxay qabeen oo u ololeynayeen dalkan inuu federaal noqdo oo baarlamaanadii ku lahaa qayb bay u ololeynayeen in dalkan federaal uu noqdo maadaama dee dawladdii ay ahayd dawlad baarlamentary ah waxay aqlabiyad uga waayeen baarlamaankii in dalku uu federaal noqdo aqlabiyad baa looga waayay weynta aqlabiyadda ay u waayeen baa waxay dhalisay in dalku uu inqilaab ka dhaco oo dawladdii rayidka ahayd gacanteeda ay ka baxdo militariga uu qabsado iyadana waxay sababtay inuu dalku burburo hal mara dadkii federaalka doonahayay xilliga waxay dareemi kareen inay dad aragti dheer lahaayeen baa hadda lagu wada qiyaasahayaayoo loo qirahayaa waxay dareemahayeen haddii dalkan inuusan burburin haddii meeli wax ka dhacaan dalku uu federaal yahay waxaa laga yaabaa meeshaa inay ku koobnaato laakiin hadday waxaana isku wada xiran yihiin oo dawladda xoo awood leh awooddeeda hadday meesha ka baxda dalku hal mar buu burburahayaa sida annaga nagu dhacay 91 oo kale